asalaamu calaykum maqaayarta meel wajagtiin oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo akhbaaradada xilligan suuq laga diiwaan gelinayo. Luis Diaz ayaa heshiis markaan la gaaray kooxda Bayer. Victor Osimhen oo go'aan cajiiba qaatay. Bryan Mbeumo iyo sheekadii Manchester soo gabagaboobaysa xilli Arsenal Cisco ay ka doorbideen ninka lagu magacaabo Kekeros. maxaa keenay Al Hilal oo la wareegtay ninka lagu magacaabo Theo Hernandez xilli Lionel Messi ay doonayeen in December ay la saxidaan xilli kooxda Genoa ee markan ku dhow yihiin qaadashada ninka lagu magacaabo Jamie Vardy. Manchester United oo goolahaye ka doonaysa kooxda Portfolio xilli Manchester City, Arsenal iyo Paris Saint-Germain ee markaan isku hayaan Rodrigo. haddii aan muuqaalka ka heshan walaa garay kanalkana subscribe noo saar. haddii aynu ku bilownana akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga warar dhowr ayaa jira. kooxda kubadda cagta Atletico de Bilbao horta wixeedaba waa sheeko faniya iyo ku xumeyn caadiya. Atletico de Bilbao ayaa soo bandhigtay heshiiska ay la gaareen laacibka lagu magacaabo Nico Williams. heshiiskaasoo muddo 10 sano ah ninkan ayaa qandaras kordhin u sameeyey kooxdiisa Atletico de Bilbao isagoo iska diiday inuu u dhaqaaqo dhanka iyo kooxda kubadda cagta Barcelona. marka waxaa la soo dhigay ninkan oo haya heshiiskii oo dhulka fidsan oo goglan oo ah waa mustaqbal aad iyo aad u dheer. marka nimanka Bilbao ah muuqaal cajiibana way soo diyaariyeen nimanka oo ku xumeen caadiga sheekadoodaba. marka intaana waa Nico iyo Bilbao. dhinaca kaleetana akhbaaradida xilligan jira qayb waxaa ka noqonaya kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa markaan heshiis shakhsi la gaartay laacibka kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Luis Diaz waa ciyaaryahan koox badan ay baadi goobayaan. haatan majalada Dabil ee Germany ka soo baxda iyo majaladaha kale siiba majalada Give Me Sport haatan waxay daabacayaan in kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee heshiis shakhsi la gaareen laacibka xulka Colombia iyo kooxda Liverpool ninka lagu magacaabo Luis Diaz. Barcelona weli kama is rajo dhigin oo waxay rabaan inay soo qaataan. isbuucii hore waa la socoteen in Luis Diaz loo diiday Bayern Munich oo la yiri wiilkan iibmaan. haatanna nimanka Bayern hay heshiis ay la gaareen xidiga lagu magacaabo Luis Diaz. marka sheekadan ayaa haatan la daabacaya oo majalada Give Me Sport iyo Dabil ee dhammaan haatan wada daabacayaan. marka laacibka lagu magacaabo Luis Diaz xalay toole podcast oo ka hadlayay wuxuu yiri waxaa ku suganahay Liverpool waana ku qanacsanahay laakiin wixii dhici doona berito ma la socdo. marka xalay taheed saakayna sheekadan ayaa timid weliba haatan duhradan 60 saac ayaa warkan haatan soo baxaya. marka Luis Diaz haatan waxaa la daabacayaa in heshiis shakhsi oo la gaaray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. waan arki doonaa sheekada iyo wixii ka soo kordhaba. dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa markan qarka u saaran inay iskaga baxdo heshiiska laacibka lagu magacaabo Bryan Mbeumo. Manchester United ayaa 30 bishii la soo dhaafay go'aan iska soo saartay tiri 7 bisha maalin isniina ninka waa dhameynina waa maanta oo 7 ilaa haatan sheekadii lama hayaba. Manchester United haatan waxaa la leeyahay ayaga ayaa go'aan shakhsi ahaantooda u qaatay in isniinta 7 bisha July ee ninka dhameynayaan 64 milyan dalab ay gudbiyeen waa laga soo diiday. Brentfordna 65 milyan lacag ku dhow 72 milyan ay codsanayaan. marka haatan waxaa la leeyahay madaxda ugu sareysa Manchester United waxay ka fikireen in sheekadan gabi ahaanba iskaga baxaanba oo laacibkan ay lumiyaan. walow kooxda kubadda cagta Tottenham albaabka markaan taagan tahay oo macalinka la yiraahdo Thomas Frank oo doonayo in ninkan uu dhanka iyo kooxda kubadda cagta Tottenham u soo kaxeysto. marka Thomas Frank waa macalinka hore Brentford haatanna Tottenham ku sugan ninkan ayuu doonaya inuu soo qaato. majalada Team Talk waxay leedahay Manchester United haatan waxay ku dhowdaaba inay iskaga baxaan ninka lagu magacaabo Bryan Mbeumo. Tottenham oo kaleeto haatan weyn ayaa ka soo yeeraya oo ah in ninkan haatan diyaar u yihiin in sheekadiisa ay galaan oo dalab haatan ay gudbiyaan. marka majalada The Mirror iyo Team Talk iyo majaladaha kale ee Ingiriiska ka soo baxa dhammaan haatan waxay daabacayaan Manchester United marka waxay luminayaan ninka lagu magacaabo Bryan Mbeumo haddii xaaladdu isbedeleen oo Manchester go'aan degdeg ah ay qaadan lacagaha ay sabixin ninkan inay lumiyaan ay u badnaa doontaa. dhinaca kale tan akhbaaradida Manchester United ka cusub waxaa qayb ka noqonaya Manchester United ayaa markaan doonaysa inay la soo sixidaan goolhaye cusub ay doonayaan inay soo xirigeliyaan. haatan kooxda Manchester United ayaa indhaha ku haysa goolhaye dhanka iyo Brazil ka ciyaara ninkan ayana haatan doonayaan inay soo xirigeliyaan. ninkan ayaana bandhig fiican haatan sameeyay koobka kooxaha adduunka isagoo kooxda kubadda cagta ee Portfolio u ciyaaraya. marka Manchester United haatan waxay rabaan goolhayaan inay dalab ka gudbiyaan ayna soo xirigeliyaan. marka xidigan ayaa haatan Manchester United indhaha ku hayaan waana nin lagu magacaabo John Cruyff ayaa la yiraahdaa.
marka haatan kooxda kubadda cagta Manchester United ninkan ayay doonayaan inay soo xirigeliyaan waxayna rabaan inay ka dhigaan bedelka ninka lagu magacaabo Onana marka Onana ayuu haatan ninkan la tirtirsiinaya ayaa la leeyahay Manchester United marka xil ciyaareedkan soo dhaafay goolal badan ayaa laga dhaliyay marka sidaad haatan goolhayaan ayay doonayaan inay soo xirigeliyaan Shadin Xumra ninkan ayay u gacan qaadayaanba dhinaca kaleetana kooxda kubadda cagta Galatasaray war aad u fiican ayaa soo yeeraya kadib ninka lagu magacaabo Victor Osimhen go'aan uu qaatay kooxo badan oo Liverpool Manchester United ay ku jiraan Juventus ayaa ninkan aad iyo aad u baadi goobaya laakiinse maanta war ayuu dhawaajiyay wuxuu yiri aniga waxaan doonayaa inaan ku sii sugnaado dhanka iyo kooxda kubadda cagta ee Galatasaray marka go'aankan ayaa noqday mid lala yaabay marka ninkan waxa la is oranayay Premier League dhanka meelaha kale ayuu u dhaqaaqaya laakiin hadda wuxuu taagan yahay Galatasaray ee sii joogayo Galatasaray oo inay bixiyaan lacag heshiiska ee lagu burburi karo ayuu taagay marka laba arin ayay midkood noqon karta in kooxaha haatan tartanka ku jira oo wax uga bislaysanayo leeyahay haddii adika aad diyaar ahayn Galatasaray ayaa diyaar ah marka sheekada dhinaca ay noqon karta iyo in uu kooxda kubadda cagta Galatasaray ka helayo oo wali rabo inuu halka ku sii sugnaado marka labada wada midkood ayay noqon doontaa marka waan arki doonaa sheekooyinka Osmanin iyo wixii ka soo kordha walow kooxaha Premier League sida Manchester United oo kaleeto si saa'ida ay ninkan u doonayaan dhinaca kaleetana akhbaaraadka xilligan jira qayb waxa ka noqonaya kadib saxiixii laacibka lagu magacaabo Victor Gyokeres Arsenal waxay u soo yeerayaan laba mid Arsenal mid waa mid u fiican oo heshiiska laacibkan ay la gaareen inay siinayaan lacago 200,000 isbuuci marka mid kale tan waxay tahay laacibkan wali kooxdiisa Sporting sheekadii ay ku dhigan tahay way ka dhaqaaqi laayihiin lacagaha farqigu waa 5 milyan marka 60 iyo 75 milyan ay haatan bixinayaan Arsenal 65 milyan oo caadi ah iyo 10 milyan oo lacagihii gadaal laga bixinaya marka 75 milyan ay wadarta noqonaysa nimankan 80 milyan ay taagiyiin marka sheekadana waa sheeko wali cakiran marka kooxda kubadda cagta Arsenal haatan waxa la leeyahay maxay ugu doorbideen qaadashada Gyokeres dhinaca kale ee Sisco iyo kooxda kubadda cagta Arsenal heshiis shakhsi ay gaareen laakiinse labada kooxood ayaa isfahmi waay taa waxay keentay madaxa suuqa ee Arsenal Andre Beretta inuu gabi ahaanba iska soo xiray albaabadii Sisco wali ay furan yihiin isagoo u soo dhaqaaqay dhinaca iyo laacibka lagu magacaabo Victor Gyokeres 67 milyan ilaa 80 milyan ku dhawaad ayay doonayaan kooxda kubadda cagta Sporting halka nimanka kale ee Lisbeth ay wiilkooda Sisco ku doonayaan lacaga gaaraya 93 milyan ilaa 100 milyan midda ayaa keentay in Arsenal gabi ahaanba sheekada Sisco iska soo xiraan ninkan lagu magacaabo Gyokeres ee u soo dhaqaaqaan marka sidaa ayay uga doorbideen Victor Gyokeres ninka kale la yiraahdo Benjamin Sisco dhinaca kaleetana wararka xilligan jira qayb waxa ka noqonaya xiriirada lala sameeyay Rodrigo waa laacib ka dhaqaaqaya kooxda Real Madrid iyo qalcadda Bernabeu Manchester City Paris Saint-Germain Arsenal dhammaantood xiriiro toos oo contact toos ah ay markaa la sameeyeen wakiilka laacibka lagu magacaabo Rodrigo iyaga oo doonaya inay ninka soo xirigeliyaan koox walba waxay doonaysaa ninkan inay soo xirigeliso Arsenal tartanka iyada ayaa ugu cadcad halka xirta uu gamiyo Pep Guardiola iyo kooxda reer Qatar ee Paris Saint-Germain markan ay sheekadu iyaguna qayb ka yihiin Bayern Munich ayaa isbuucii soo dhaafay sheekada ku jirtay marka Rodrigo waa la isku wada hayaa oo saddexdan kooxood plus Bayern Munich afartaas ayaa markan si adag ninkan u baadigoobaya oo xidigan markan tartan adag ayaa markan loo galayaaba dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Napoli oo suuqa si fiican ugu jirta markan waxay gacanta ku dhigaan nin laacib cusub oo kooxda PSV Eindhoven ka keeneen laacibkan sheekadiisi waxaa la dhameeyay 2 maalin ka hor ku dhawaaqista kaliya ayaa dhimnad waana laacibka lagu magacaabo New Lang ninka reer Holland haatan kooxda kubadda cagta ee Napoli ayuu ku biiray 25 milyan ayaana sheekadiisa lagu gabagabeeyaba dhanka kale tan kooxda kubadda cagta ee Al Hilal nimanka ka dhisan Sacuudiga ayaa ugu dambeyn gacanta ku dhigay Theo Hernandez laba jeer ay isku dayeen mar way ku fashilmeen markan way gabagabeeyeen sheekadiisa oo laacibka 25 milyan ay haatan ku soo xirgeliyeen wiilkii hore kooxda Real Madrid AC Milan haatan u ciyaariyay ugu dambeyn dhanka ay Sacuudiga ayuu u dhaqaaqay oo kooxda kubadda cagta ee Al Hilal ayuu markan ku biiraba sidoo kale Al Hilal waxay doonayaan in December tan ay la saxiixdaan laacibka lagu magacaabo Lionel Messi winterka markii la gaaro xilligaas ayaa haatan doonayaan ninka lagu magacaabo Lionel Messi in la soo saxiixdaan xilliga horyaaladu waa dhammaad oo dhanka iyo MLS-ka markii la fiiro fasax ayaa la galaya marka ninkan ay rabaan fasaxaas inay uga faa'iideystaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Genoa ayaa markan ku dhow qaadashada laacibka lagu magacaabo Jamie Vardy oo kooxdiisa ay u laabatay heerka labaad sidaa daraadeed walow macalinka kooxda kubadda cagta Genoa
haatan hogaamiye Vieira oo haatan heshiiska gabi ahaanba kasoo horjeedo oo laacibkan uusan doonaynin walow madaxda ugu sareyso kooxda kubadda cagta Genoa haatan ay doonayaan ninkan ilaa la saxiixdaan marka akhbaaraadyadan waxay aynu kuwii ugu dambeeyay suuqa waan arki doonaa wixii kasoo kordha haddii muuqaalka channel garay kanalka subscribe noo sar goodbye